قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام وعانو wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka galcad media qodobada ku daawad doontaan waxa ugu dooran gudiyo doorasho iska soo horjeeda oo galmudug looga dhawaaqay iyo beelaha Saleebaan iyo Sacad oo taageero u muujiyay madaxweyne Xaaf Mareykanka oo weerar ugu jawaabay weerarkii Balidogle iyo shabaab oo sheegtay dhimashada 100 askari. dawladda Soomaaliya lagu eedeeyay inay dayacday amaankii dalka iyadoo ay korortay weerarada shabaab ay geysanayaan. 40 dawladood oo lagu casuumay shir caalami ah oo maanta ka furmaya Muqdisho. taliska danab iyo wasaaradda gaashaaniga Mareykanka oo war ka soo saaray weerarkii shabaab ay ku qaadeen Balidogle. al-shabaab oo si la yaab leh u weeraray xerada Balidogle. warka dibadda daawadayaal waxaa ka mid ah nin 17 sano booliska Shiinaha go'doonka duumariyo gacanta lagu soo dhigay. hagaaga haddii aanu ku cusubtahay fadlan daawaday subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka. taariikhdu waxay tahay 1 bisha 10aad 2019 intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal. قلعة ميديا. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. maamulka galmudug ayaa wajahaya khilaaf cusub kadib markii madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf uu si rasmi ah uga laabtay tilaabadii ugu wakiishay howlaha maamulka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. khilaafka cusub ayaa ka dhashay hanaanka awood qaybsiga beelaha maamulka galmudug, magacaawista guddiga doorashooyinka galmudug iyo soo xulista xildhibaanada maamulka galmudug. madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay in faragelin kaga timid hanaanka soo xulista odayaasha dhaqanka maamulka galmudug iyo ku dhawaaqista guddiga doorashooyinka maamulka galmudug. sida ay xogogaal ay noo sheegeen, dawladda Soomaaliya ayaa diyaarisay guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug, waxaana sidoo kale madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf uu dhankiisa diyaariyay guddi doorasho ka kooban 12 qof. dawladda ayaa ku dhawaaqaysa guddi doorasho halka sidoo kale Xaaf uu ku dhawaaqayo guddi doorasho. madaxweyne Xaaf ayaa taageero ka helay inta badan beelaha degan mudug iyo Cadaado, waxaana laga yaabaa guddiga doorashooyinka galmudug ee dhanka Xaaf inay ka soo muuqdaan xubno awood siyaasadeed leh. galmudug ayaa qarka u saaran inay yeelato 2 guddi doorasho oo iska soo horjeeda, waxaana dhammaan fashilmay dadaalo lagu xalinayay khilaafka cusub ee madaxweyne Xaaf iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya. dawladda Mareykanka ayaa weerar ugu jawaabtay weerarkii Balidogle shabaab ay ku soo qaadeen. taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo Africom oo war ka soo saaray weerarkii ay shabaab ku qaadeen saldhigga Balidogle ayaa sheegay in wax khasaare ah uusan ka soo gaarin ciidamada Mareykanka ee jooga saldhiggaasi iyo kuwa Soomaalida ay ku sugnaa isla saldhiggan. talisku waxa uu sheegay inay geysteen 2 duqeymood isla markaana ay ku dileen 10 ka tirsan dagaalamayaasha shabaab. sidoo kale ay ku burburiyeen duqeyntaasi mid ka mid ah gaadiidka shabaab. dhanka kale al-shabaab iyagoona war ka soo saaray weerarkii ay shalay ku qaadeen saldhigga Balidogle ayaa sheegay in weerarkaas ku dileen askar badan oo Ameerikaan ah. wasiirkii hore ee amniga xukuumaddii Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa eedeyn kulul waxa uu soo jeediyay madaxda dalka ugu sarreysa sida madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. xildhibaan Cabdirasaaq ayaa madaxda ku eedeeyay inay ka jiifteen la dagaalanka al-shabaab iyo wax ka qabashada weerarada ay geysanayaan. xildhibaanka ayaa tilmaamay in maalmihii u dambeeyay al-shabaab ay kordhiyeen weerarada xoogga leh ay ku qaadayaan saldhigyada militariga ku yaala gobolka Shabeellada Hoose oo ugu dambeeyay kii shalay ka dhacay xerada Balidogle. Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa ka dhawaajiyay in awoodii shabaab ay dib u soo laabatay ayna ka muuqatay weeraradii qaraxyada iyo dagaalka xigay ku qaadeen saldhigyada Ceersaniin iyo Balidogle. xildhibaanka ayaa arinta ku micineeyay istiraatiijiyada haysata madaxda dalka ee iyagoo aan u soo jeedin in ay arinta wax ka qabtaan. marka weeraradu waa badan yihiin waxaana keenaya wax kale ma aha waa dawladdu aan lahayn istiraatiijiyo ay kula macaamisho ama ay wax uga qabato shabaab
يعني weaknesses badan oo dhanka dawladda ka jiro waxyaabahan soo dhan oo isku yimid ayaa yani ayaa caqabadooyin jira oo ay ka faa'iideysanayaan al-shabaab yani oo ay ku weerarayaan meelo aan la weerari karin waa ogtahay yani balidoogle bayska ku yaallo yani waxaa gacanta ku haya ciidamo maraykan ciidanka danaba joogay waa meeshii lahaa yani lama soo weerari karo yani in si sahlan lagu weeraro waxay kutusinaysaa yani shabaab inay weli awoodii ay lahaayeen iyo mid ka badan inay leeyihiin. waxaa maanta lagu wadaa in magaalada muqdisho uu ka furmo shirka madasha wadatashiga Soomaaliya kaasi oo lagu casuumay ku dhawaad 40 dawladood oo ka qaybgeli doona shirka oo maalmo ka socon doona magaalada Muqdisho gaar ahaan xirada Xalane. shirka oo ka kooban dhowr qayb ayaa maanta wuxuu u dhaxeeyaa hay'adaha caalamiga ah ee dawladda taakuleeya iyo dawladda Soomaaliya waxaana daafuraya ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. shirka intuu socdo waxaa looga hadli doonaa qodobo ay ka mid yihiin amniga, dhaqaalaha, siyaasadda, dib u dhiska dalka, kordhinta taageerada caalamiga Soomaaliya iyo qodobo kale. shalay waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen oo qayb ka ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi. sidoo kale waxaa isna Muqdisho ku sugan madaxweynaha Hirshabeelle iyo mas'uuliyiinta qaar ee wadamada shirka lagu casuumay halka kuwa qaarna ay iyagana isla maanta Muqdisho soo gaari doonaan. weli si rasmi ah uma cadda in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland inay shirkan ka soo qayb gali doonaan. taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalkii qaraxyada qaybta ka ahaayeen weerarkan xigay ee al-shabaab ay ku qaadeen garoonka Balidoogle shalay ee gobolka Shabeellada Hoose oo saldhig military ay ku leeyihiin ciidamo Mareykan ah iyo kuwa sida gaarka ah u tababaranay danab ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa sheegay in shabaab ay xirada Balidoogle ku soo weerareen ku dhawaad 4 gaari oo ay qaraxyo ka buuxaan iyo dagaalamayaal badan waxaana ay sheegeen in iska difaaceen jab xoogan ay u geysteen. taliska militariga ayaa sidoo kale tilmaamay in gabi ahaanba dagaalamayaashii weerarka soo qaaday lagu dilay banaanka hore ee xirada dhankoodan aysan jirin wax khasaare ah oo ka soo gaaray. gaashaanle Cabdiraxmaan Cumar Jeeni Qaar oo ah taliyaha ciidanka danab ayaa sidan warbaahinta dawladda u sheegay weerarkii dicifnimada ahaa ee argixisadu isku soo dayday xarunta danab inay ku samaysay Balidoogle ee fashilka ku dhamaaday waxay saakayto 3 saac iyo bar isku day ku soo sameeyeen xarunta Balidoogle halkaas ay u soo adeegsadeen baabuur qaraxyo ah oo ilaa 4 gaaraysa iyo dad maleeshiyaan oo ay madaxa ka soo khaldeen dhammaantoodna lagu soo afjaray xarunta Balidoogle iyagoo aan wax khasaare ah iyo dhaawac iyo dhimasho midna soo gaarsiin ciidankayaguna si taxadir leh oo kalsooni leh ay uga hortageen iskagana difaaceen. waxaan kale oo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshada weynta nala soo wadaagtay informationkooda iyo xogahooda iyo inay soo aadan yihiin taasoo aanu diyaar u ahayn waqtiga iyada ay imaadeen markaasna ciidankeena u shaqeeyeen sidii ugu wanaagsaneed uguna macquulsanayd dhibaatana aysan naga soo gaarin. waxaa jira warbixino been ay qorayaan oo leeyahay waxaan soo gaaray meel xiblo iyo garoonkan soo galay taasna waxaan inay caddeyn inaysan soo gaarin waxna aysan ka jirin aysan u soo gaarin 500 mitir xataa aysan soo gaarin garoonka iyo xerada ciidanka midna 4 gaarin ay lagu qarxiyay banaanka hore ciidankoodana meesha ku dhamaadeen. tiradooda gadaal ma kaga soo xaqi jireen haddii Allah wada ogolaado laakiin wax ka laabtay ma jiraan dhamaantood waxa iyaga hayeen Ismaaciil hayn aad awood la kala hartaan marka waxay heli kareen meesha way la yimaadeen mana aysan ku guuleysan inay qorshahooda gaaraan rasmiga ah. maleeshiyaanka al-shabaab waxa weeyaan awood ma jirto ama maxaan ku raahday caqiido rasmi ay ku dagaalayaan ma jiro waxa u wanaagsanaan lahayd inay isu soo dhiibaan la tarabiyeeyo wax la baro. al-shabaab ayaa dhankooda sheegtay inay qabsadeen qayb ka mid ah saldhigaasi maray la hadlayeen warbaahinta ku hadasha afkooda ee Andalus. nin 17 sano booliska Shiinaha god uga dhuumanayay oo gacanta lagu soo dhigay. ciidamada booliska Shiinaha ayaa gacanta ku dhigay nin baxsad ahaa oo muddo 17 sano god uga dhuumanayay kadib markii la adeegsaday diyaaradaha droniska si loo soo qabto. ninka oo jira da'da 63 sano ayay boolisku magaciisa ku sheegeen Song Jin wuxuuna ka baxsaday xabsi sanadkii 2002 waxaana loo haystay inuu ku howlanaa ka ganacsiga caruurta iyo haweenka. ninka wuxuu ku noolaa god yar oo ay ku hareereysan yihiin buuro muddo sanooyin ah
wuxuu iska ilaalinayay inuu arko qof bini'aadan ah. ciidamada booliska ayaa horaantii bishaan helay warar sheegayay inuu ninkaasi uu ku noolaa god ku yaala gobolka Yunnan ee koonfur galbeed dalka Shiinaha. daawadayaal wanaga intaa warkaad kala socoteen Galcad Media haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawadii subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka. Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.